munaasabad siyaar sare ah loo soo agaasimay oo lagu soo dhaweynayay senator Ilyas Cali oo ah xogayaha arrimaha dibadda xisbiga himilo qaran ayaa ka dhacday magaalada London. Munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay xubnaha himilo qaran ee UK waxaana ka soo qayb galay dadka kala yimid gobolada dalka Britain. Senator Ilyas maruu TV-ga dalka wareysi gaar ah siinayay waxaa su'aal laga weydiiyay doorashada qof iyo cod qabsoomi doonta sanadkan lagu soo aadan waxaana uu yiri bismillahirrahmanirrahiim wa ma santaa walaalka Cabdiqaadir waa ku dhawahay maxaa ahaa dabcan watahay magaalada London ayaa timid inkastoo marka kugu horeysay aysan ahayn safarkaagii maanta aad ku timid halkani muxuu ugu duwan yahay safaradii hore aad ugu imaan jirtay waxaan u imid safar shaqo oo arrimaha oo himilo qaran la xiriira si fiican buu iigu dhacay kulamo fara badan aan ku lahaa magaalooyinka Bristol iyo Birmingham iyo London safarkaasina guul iigu dhamaaday caawana xafladda maaragtay dadka Soomaaliyeed ee kala duwan iyo taageerayaasha xisbiga ay sameeyeen oo soo dhaweynta ahayd marka alxamdulillah saasaan u imid watahay marka xisbiga himilo qaran waa xisbi aad iyo aad u fircoon muxuu yahay marka higsigiina 2021 waxaana soo baxday in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya farmaajo uu saxiixay qof iyo cod in ay dhici doonto misleedahay marka hadii aad tahay hogaamiyaha arrimaha dibadda misleedahay marka in ay suurtageli kartaa arintaasi uu saxiixay madaxweynaha waan rabnaa sida aan rabno waaye inay doorasho qof iyo cod dhacdo waana ku dadaalaynaa laakiin dabcan ma aha wax oo igu soo bood ah waa garan kartaa shaqada ka horeysa waxaan aaminsanahay in shaqadaas aysan ahayn shaqo waqtiga la rabo in doorashadu ay dhacdo ku suurtagelayso laakiin anaga xisbiyada hadaan nahay aad u soo dhaweynayna saxiixa uu madaxweynuhu u saxiixay de processkeedana qayb aan ka ahayn marka hadii ay dhacdo in waxa jirta in telekoob la sameeyo dadka la sameeyo miyaansaas ahayn mase sida oo sahlan in yani degmo kasto dadka laga soo telekoobo ay noqoto marka adiga waxa tahay senator waxa ka tirsan tahay dawladii marka xisbigan waad ku jirtaa marka ka mowqif ahaantaada sidee wax ku dhici karaan ma aaminsani shaqada aad sheegaysid in lagu qaban karo 8 bilood oo hartay marka waxay u baahan tahay in wadahadallo siyaasadeed laga galo habka doorashada 2020-2021 ay u dhacayso okay arrimaha dibadda ayaad qaabilsan tahay su'aasha ugu dambeysay maxaad ka qabatay intii aad Bristol tagtay London timid haatan safar ayaa tahay marka waxyaabaha aad qabatay oo dhinaca arrimaha dibadda maxaa kamid ah noo sheegi kartaa hal iyo laba waxa ugu muhiimsan dhismaha xafiisyada arrimaha dibadda ee xisbiga marka kaliya ma aha in London iyo Bristol iyo Birmingham aan imid oo UK meelo badan oo kala duwan aan tagay marka meelahaas oo dhan maxaa la yiraahdaa shaqooyin badan ka qabanay wadan badan kala aan tagnay ku badan hadda aan tagi doona insha Allah aniga kaligay ma aha hogaanka kale ee xisbiga laftiisa shaqooyin fara badan bay ka hayaan aad iyo aad u mahadsantahay Ilyas si kastaba ha ahaatee xafladda ayaa waxay ku soo idlaatay sidii loogu talagalay Cabdiqaadir Mukhtaar dalka TV magaalada London.